safarka kooxda kubadda cagta ee dekedaha ayaa tilmaamaya horumarka dhinaca ciyaaraha ee ku tallaabsatay Soomaaliya waxaana ugu dambeysay ka qaybgalka tartanka horyaalada kooxaha qaaradda Afrika kooxaha dalkeena sanadkii 1989 kooxda dekedaha oo haysata horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa la ciyaari doonta kooxda Al-Zamaaliga ee dalka Masar waxaana kulanka hore la ciyaari doona 11 bisha 8 2019 garoonka Qaahira Stadium isla kulanka kalena wuxuu ka dhacayaa Qaahira Stadium maadaama wali garoomada Soomaaliya aysan diyaar u ahayn ku ciyaaridda kulan caalami ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab oo kamid ahaa mas'uuliyiintiisa go'tiisa kooxda kubadda cagta ee dekedaha ayaa sharaxaya muhiimadda tartanka uu u leeyahay kooxaha Soomaaliya waxa suurtagalay in xiriirka kubadda cagta uu diyaariyo in kooxda dekedaha Soomaaliyeed oo ah kooxda horyaalka dalka ah in ay ka qayb gasho tartanka isreebka qaaradda Afrika ee kalabyada oo loogu magac daro African Champions League waana markii 30 sano ayaa noogu dambeysay inay kooxaheenu ka qayb galaan 88 kooxaheenu hore jiray oo xilliga barisamaadka tartankan qiimihiisu wuxuu cuskan yahay waa tartan qaaradeed kooxaheenu markii hore waxay ciyaari jireen tartamada bariga bartamaha Afrika wasiirka wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha Maryan Awees Jaamac oo kula dardaarantay kooxda kubadda cagta ee dekedaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa u rajaysay guul fursad weyn ay noo tahay annagoo ka maqnayn ciyaaraha Afrika muddo 30 sano ah maanta inaan arkayno naadigii dekedaha oo runtii nagu soo celiyay ama soo celinaya sharafkii wadanka iyo calankii Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya waxay idin la garab taagan tahay hiliyahooba wixii markaas aan runtii ku biirin karno kooxda si aan dib u soo celino sharafka wadankeena iyo calankeena iyo ciyaartooydeena dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Muqdisho Club ayaa u dhooftay dalka Tanzania gaar ahaan jasiiradda Zanzibar oo ay kaga qayb galayaan koobka xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika ayaa tababara ku-xigeenka kooxda kubadda cagta ee Muqdisho Club Cabdiweli Colaad Qanyare ayaa ka warbixinaya tartanka iyo u diyaar garowga waxaan u soconaa maaragtay naadi la dhahayo ka dhisan Zanzibar waxaan la ciyaareynaa naadi la dhahayo maaragtay oo Zanzibar ka dhisan insha Allah taala waxaan rajeynaynaa inaan guul badan soo hoyno insha Allah lagu farxo dalka iyo dadkaba ay ku farxaan iyo gobolkaba safarada kooxaha kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa noqonaya guul iyo tallaabo loo qaaday horumarinta ciyaaraha guud ahaan